adigu adna gaari cad ku socon maysid dadkana dulmi maysid biyo la'aan dhigi maysid jeebadaada naaxid maysid been u sheegi maysid wiilkaaga yar halka iska socda ee gaariga ku dhex jira de wiilkan yar markuu wax barashada waayo caafimaadna waayo suuqu gali isaga uu midna la raasan doona suuqa ma socon doono China group baa bilaabi doona guriyaha la isugu soo gali doona taasa marka iman doonta amni darrada halkaas ay ka imani dhaqaale darrada keeni maamul xumada keeni dulmiga keeni dadku marka la dulmo caaraytaga group xaaladda Itoobiya ay ku jirto Itoobiya xaalad adag bay ku jirtaa waxay ku jirtaa xaalad amni oo dagaal ka socda xaalad dhaqaale xaalado kala duwan baa ka socda xaalad maamul xumo marka xaaladda dhaqaalaha waa xaalad caalamku ka sii dayrinaya muddo badan Itoobiyana mar walba waxay lahayd dhaqaalaha iyagu wuu kordhay dhaqaalaha kordhi muxuu yahay waxay lahaayeen ma taqaanaa gross domestic product waxaan la yiraahdo GDP oo lagu cabirayo dakhliga ka soo xarooda wadanku inuu isku filaan karo ama muddo iskabi karo wuu kordhay bay lahaayeen xaguu kordhi baa taala wadanka abaaraha ka dhacay wax soo saar ma jiro beerihii ma jiraan dagaal baa socda waxyaabihii reer Itoobiya ay dhoofin jirtay oo canshuur dhaafka wadamada Afrika lagu kabi jiray waa la joojiyay iyadana marka dhaqaaluhu halku ka iman baa taala xaqiiqda marka mid garab marsan bay ahayd mas'uuliyiinta bankigu in ka way dhawaaqayeen in lacagtii hada currency ay dhamaanayso caalamku way dhawaaqayeen waxa ku soo baxaysa xaaladda Itoobiya maanta ay ku sugan tahay marka in Itoobiya ay tahay ukun gacanta lagu hayo tababar xitaa ma qabsan karto lacagta Itoobiya akoonka ugu hadhay ee wax ku soo gadan karto 17 cisho inay wadi karto waxyaabaha asaasiga yaa lagu qiyaasaya intaas oo dhan waa laga hadlayay waxayna lahaayeen un dhaqaalaha kordhay xuu ka kordhay barwaaqa lagu jira waa green arrimaha markaan dib isu weydiiyay anigu waxa ii soo baxday adduunka maanta caalamka Itoobiya waxa loo yaqaanaa wadankii riyoonayay maalinta ama wadankii dhalanteedka macnaha wadan xaaladda dhabta ee jirta aan ka hadlaynin oo khiyaali ku jira ayaa Itoobiya lagu tilmaamaa oo madaxdoodu inta isu timaado ay run isu sheegi kareynin marka in badan waxayna yiraahdaan qabadin baan dhoofinayna dhaqaalihii baa kordhay wadanku waa barwaaqo waxyaabaha marka dib ugu noqoto marka iyo sababta imika imtixaamada loogu qaadayo jaamacadda waxa soo dhan waxa ku soo baxaya in khiyaali lagu kabayo xaaladda dhabta jirta oo la wajahaynin marka anu waxaan isri barwaaqada inoo sheegayaan waa jabadahooda barwaaqadu xaafadahooda barwaaqaysan ehelkooda barwaaqaysan dhaqaalaha kordhay inoo sheegayaanna waa iyaga jabadahooda jabadooda kordhay ka ehelkooda kordhay akoonadooda gaarhaneed baa kordhay dhaqaalaha wadanku heer ku gaadhay hadda Ahmed Shide iyo Dr. Ayub oo ah state ministerkiisa isaga ku xigeenkiisa waa kuwii tagay arinta in Itoobiya loo sameeyo dib in loogu habeeyo deyntiiba u tageen IMF bay la kulmeen mas'uuliyiin Mareykanka ay la kulmeen reporter baa soo qortay waxa soo qortay Reuters baa soo qortay meelo badan baa caalamka soo qoray marka waraysiidii ay bixiyeen iyo wixii lagu wada hadlay iyo wixii lagu soo kala tagay halka marka reportka iyagu ay ka jeediyeen iyo shirkay la yeesheen IMF-ta iyo waxay halkan kaga amba baxeen wuxuu ahaa in shuruudihii IMF-ta iyo World Bank iyo kulli iyo Europe tamam waxay ka dalbadeen maray galbeedku inay oofinayaan IMF-ta shuruudaheedu way farabadnaayeen waxaan ka xusuusanayaa koow taleega in private laga dhigo Ethiopian Airlines-ta kabida shidaalka in la joojiyo waxyaabo fara badan oo noocaas ah deymihiina iska bixiyaan waxa deyn lagu siin karo shuruudo badan oo noocaas ah bay ahaayeen xiriirka China laftiisu si dadban ugu jira dagaalka in la joojiyo reer galbeedka koow waxyaabihii oo dhan markaa kulankii ugu horeysay waxay yiraahdeen waanu aqbalnay restructuring loo sameeyo oo dib hana lagu habeeyay deyntii report buu jeediyay oo ku sababaynayo state ministerka Itoobiya Dr. Ayub wuxuu ku tilmaamay sababta waqtigii deyntu uu u dib dhacay inay ahayd dagaalada awgood oo dagaal lagu sii jeeday wadankuna oo dagaal ku jiray arinta marka sida anigu aan wararka ku hayo oo media badan ay qorayaan ra'iisul wasaaruhu ka xanaaqay ereyga
inay taa ku micneeyaan inaha adigu markii mas'uuliyiintii la kulmeen shuruudiha ay dhigeen waa laga aqbalay waxay yiraahdeen xukuumadii aan dib ula tashanayna in yarna suga shirkii bay ka soo baxeen waxa la sheegay in dib ula soo hadleen ra'iisul wasaaruhu markaa inuu ku xanaaqay nimankii kuma noqon dadkii sugayay sidii bay Itoobiya ku soo galeen horta wadankayna xukuumiye dadkayna xukuumo horta waa dadka noocaas hadda xaaladda dhaqaalaha marka dib ugu noqono waad ogtiin bankigu uu shaaciyay waxyaabo ruuxiyaaliye qoreen baabuurta in la joojiyay iyo baabuurta waa sax oo baabuurta luxury-ga waa in la joojiyo goor walba oo baabuurku mar hadii amuuna cagaf ahayn ama iska rogo ama baabuur xamuul ama basas oo manaaficadina ku soo kordhinayno bulshada oo hal shakhsi ama qoys uu adeegsanayo xagga kalena ay jaam iyo wadooyinka xiriir soo kordhinayaan hadiya jeerba siyaasadda dawladda ee horumarku waa inay taa ku wajahnaato oo la diidanaado oo limit laga dhigo sababta canshuurta lagu qaaliyeena waa taa waa horeba in la sameeyahay laakiin hadda ujeedadu taama ahe IMF-tan iyo waxan bay islahaayeen ku cadaadiya marka halkii loo diray mayna u kicin waxyaabo yarar oo ma taqaanaa waxaan joojinay nanaci iyo kibriidkii iyo khamridii iyo wax noocaas waxa loo ma dirin boolisiyo weyn baa loo diray abiy uu garanaya waxa loo diray waxa kale oo ku jirtay inuu waa dhaweyd oo arkay oo dad baan u sacabtumayeen Ethiopia banki private kuma horeeyo ma ku hore la duminaya 100 baa jira waxyaabaha IMF waxa kamid ahaa international bankigu inuu iman karo Ethiopia caadiya way ku dareen hadda waxyaabaha laga rabo marka kuwa bay ahaayeen halkay kuwa uga kici lahaayeen iyo qodobada iyo waxan sameeyeen marka hadda dhaqaalaha Ethiopia waa sagxad kasta haduu ahaado inaga ka Soomaali ahaan bankiga Ethiopia markii horeba lacag meena ka qaadaneen anigu waxaan leeyahay bagay ka dhamaatayba oo sababtu tahay kuma Soomaali oo bankiga lacag ka qaadanayay dollar laga siinayay ma jirto qofka xanuunsada xitaa ee warqad loo qoro bankiga kama qaato dollar lagama siiyo ganacsatada lagama siiyo ciduu ka dhamaatay marka waa cidii koron ama oramaha lagu tilmaamo cid kale lagu tilmaamo waa cidii Soomaali wax ka dhamaaday ma jiro awalba adigu waxaad ku tiirsanaydun suuqa madow baad ku tiirsanayd suuqii madow bay kula cididiyaan inaga ka Soomaaliyan wax naga lumi karaa ma jiro deegaankeen boqol haday wax ka dhamaadaan dhaqaalaha guud uu saameyntiisa mooyaane ya laakiin dadkii ganacsatada ahaa ee ka qaadanayay ilaan dollarka normally waxay bankigu qof kasta oo dibadda wax ka soo gadanaya intuu bankiga tago in bankigu siin karo tii ma jirta marka haddana dadka kale way ka qaadan jireen laakiin wax manaaficada ma inaan ku qabin hadda lafteeda jaamacadaha imtixaanka lagu qaadayo wasiirka waxbarashada mixnad siyaasadeed ku dhex jirto laakiin waa xaalad dhaqaale iyo xaalad siyaasadeed oo kale waxa la rabaa in la xadido dadka jaamacadaha galaya ya oo ilaan qishku iska dhibirta sida lagu control karo meel walba tobanno gudda socotabe hadii la yiraahdo lama qishi karo galaaskana waa la ilaalinaya boolisna wuu joogaa lama qishi karo marka waa wax si dhibir loo dhaadhicin karo in la dagaalamo qishka very easy dadka in la isu keeno marka waa imtixaankii gacanta lagu hayo waxa la soo saaraya marka dad kooban kullee xagga Oromiya u badan doonta iyo Jimiyo marka waxa la diidan yahay jaamacadihii baan qaabili kareynin ya arday fara badan sidoo kale ardada qalin jabinaysa markay korodho ya shaqo la'aanta sanad walba dawladda ceeb bay ku noqonaysaa marka ardada enrollment-tigana waxa la rabaa in hoos loo dhigo oo la yareeyo taasina waa policy kale oo ku daba jira ya kasoo tan siyaasadeed ee Burhaan inaga uu wato mid dhaqaalana uu ku daba jira marka waxa la rabaa marka dad kooban in imtixaanka ay soo baxaan oo waxaan ku soo noqonay marka xaaladda maamul ee Ethiopia haysata maanta Ethiopia maanta xaalad adag bay ku sugan tahay wax kalena ma aha leadership baan jirin federal illa kilil leadership ma jiro dad ismaaj gareeyo oo is urursaday oo inta is uriyaan isgartay weeyaan sida xoolaha ismaaj gareeyay oo jeebadooda naaxinaya oo dantooda gaar naaxinaya oo wadanka tan ka lahayn oo raba xagaaras waxa la yiraahdo xaar muuqday asaasta oo ceebti wadanka raba inay ciid yar dhinac kaga shubaan dagaaladii way ka sii darayaan dhaqaalihii uu ka sii daraya siyaasaddu way ka sii daraysaa hal meel oo nabadii ma jirto Ethiopia inaga nabad sheegana inagana xabadu ma dhacaynine xabadu waxay ku bilaabataa oo ka bilaabataa xasilooni darro siyaasadeed baa jirta oo aad u ballaaran guux baa jira xasilooni darrada siyaasadda bay ka iman doontaa xabaduna hadaan hadda lagu hortagin deegaankeenana
waayo xuquuqda waa la wada leeyahay adigu adna gaari cad ku socon maysid dadkana dulmi maysid biyo la'aan dhigi maysid jeebadaada naaxid maysid been u sheegi maysid wiilkaaga yar halka iska socda ee gaariga ku dhex jira de wiilkan yar markuu waxbarashana waayo caafimaadna waayo suuqu gali isaga uu midni la raadsan doona suuqa ma socon doono China group ba bilaabmi doona guryaha la isugu soo gali doona taasa marka iman doonta amni darrada halkaas ay ka imani dhaqaale darrada keeni maamul xumada keeni dulmiga keeni dadku marka la dulmo caaraytaga group ama qori haysa ama bam hayso kuwa isqarxiyaaba xuquuq bay raadinayaan qaar ya sometimes qof argagixisa lagu tilmaamayo hadana waa freedom fighter maxaa ku dhahdaa Mandela argagixisu ka qornaa Ingiriiska ya inuu argagixisay yahay baa la ansixiyay hadana isla Ingiriiska isla isagii isla baarlamaankii isla goobtii yaa waxay ansixiyeen inuu yahay freedom fighter geesi inuu yahay oo madafiic loogu riday Ingiriiska hadii marka xasilooni darrada siyaasadda aan la xalinin oo anigu waxaan u fikirayaa hadiya Chelsea Browda adiga laftaada adoo danaysanaya oo amnigaaga ilaashanaya nabadaada ilaashanaya xaqiiqda inta lagu soo noqdo xasiliino darrada siyaasadda hadii aan la kicin kursigana mid la isugu wareejiyo la isaga kaca ma noqonayo oo hebelo soo fadhiisan la yiraahdo anigu waan daalay adiguna ku sii fadhin kari mayso nabad ku fadhin maysid waa inay noqoto in dhagaha dhib badan baa dhici marka xasiliino darrada siyaasadda si looga hortago anu waxaan ku cilnaa mar labaad in khiyaaliga xukuumaddu ka baxdo waxa dhici doonta arrin imika aydan filaynin oo aydan islahayn ma sidan ay ahayd waas qabsan doontaanu ma ogidin xogogaal ma tihiin gaadhiga baad la socotaan guryaha baad ku jirtaan xafiisada baad eegeysaan kuraasta baad eegeysaan fikirkiinu wuxuu ku salaysan yahay isla qolka aad joogtaan codkana waxaad ka taqaanaan kadib soo noqda ee idinkii ah ee karunta ma taqaanaan waxaad eragaad ku hadashaan inuu idin ka soo daba noqdo oo suldaanku ku hadlo oo garaadku ku hadlo oo ururadu ku hadlaan taan baa taqaanaan laakiin runta ma taqaanaan oo runta ana idin sheegi kuwa idin ag fadhiyaan idin ma sheegayaan idinkuna ma fahansanidin xasilooni darrada siyaasadeed deegaanka laga sameeyo dib u soo noqda isla yaaba sidan iskama kiin bixinayso halkaas aan ku soo gabagabayn lahaa